أبرايو قباتي قب بشاتي كاري كورسيو كيف مدلباتي لان كبي كنتارو كدني تابباتي جدي قولي يا بار بالمقايدة شرف بدن على قايم باتي هذا هو واحد مشكلة نيكا مانتا كما يقنوا عاصر إمكا هذه واحد ما سيكشروا وما نقاط قالوا الشن إيا أفرت السرقور شري إيقبديها نيكا انتبو تاريخ سوية على قري وقوم بقى عبد الله حسن haddana gabaygaas soo dhexgeliyey ee boogga ku qoray 49 ku qoray waxa uu u jeedaa waa waxaan la garanay laakiin ma dhagaysanayno annagu colaadna isu qaadi mayno isna dili mayno isna caabayn mayno wallaahi adigana kula daatagayna ninkaa madaxweynuhu xilka ka qaada ummadda uma hayn kara ninka noocaas xilka waa inaad madaxweyne xilka ka qaadaa marka xigta waa in ninkaasi buugiisu qoray meel kastaba intuu isqarqareeyo soo ururiyo oo ummadda horteeda ku gubo hawsha qaranka u haya ninkaasi ma geeyo mana qaban mana laguma aamini maayo saacadda annaga nooma aha madaxweyne hooyadaa buu caayay hablaha deeganan baa ku dhashay hablaha nacaaya cidagalaha سوموس كم يدري من هذا هو يذهب على مدحوينه هو يذهب بوجا سوريا كلام قري أيده يا أبو قري كمان نود حي بروي كابا أبو قري حبايره يا أبو قري وامد دمان أمة الصومالية أريكين وحلا هاي مدحوينه شخصي كفاه حتى لقبته عذر كوباحية نجاسو كفي haddaad wax ka qabato cudurkuu bixi doona haddaadan waxba ka qabanna annaga gacanteeda wax kaga qaban doona assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan anigu qodobeynayaa laba kalmadood oo keliya ta aniga waqtiga ilaashanaya ninka siirkii wuxuu horta u socdaa isku dir uu doonayo dad dhintay inuu ka been sheego inuu qabyaalad iyo wax dee imika in hore looga sii socday uu dib u saafaqo laakiin cidi dib ugu noqon mayso mudana madaxweyne waxaan ka codsanaynaa wasiirkii aad u warfaafinta aad u magacawday wasiir uu ummadda u noqon kara iyo wacyigelin uu ummadda u siin karo ma jirto laakiin wuxuu saafaqayaa amba uu jeedinayaa oo ummadda dhex gelinaya xumaan beri hore lagu kala bogsaday lagu kala tegay wixii dadkii dhintay ay hore qoreen iyo wax aanay odhanba ayuu ka been sheegay waxaan ka codsanaynaa madaxweyne anigu ku dhihi mayno gabdhaha ciidagale ayuu wax ka sheegay dee gaar ahaan baan u cabanaynaa ma odhanayno laakiin waxaan ka hadlaynaa haweenweynaha Somaliland oo dhan ayay ku tahay laftar in qaranka Somaliland ay ka mid yihiin haweenka ciidagale lagu dhaxaayo waliba nin wasiira oo dee dadka u haya xil inuu buugu qoray 7 sano ka hor maanta la soo qaato oo wuxuu ku qoray la soo bandhigo taas waxay keenaysaa inaanu wasiirku ka fiirsan taariikhda iyo joogitaanku joogi doono ama xil wadanka looga magacaabi doono uma haysanin laakiin way dhacday taas bedelkeeda madaxweyne waxaanu kaaga sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh in aad wasiirkaana xilka ka qaado buwaagtana uu soo ururiyo gacantiisana uu soo ku gubo dadka uu ku gafay hablaha daawud hablaha ciidagala weyne uu ku gafay inuu hor yimaado anagu mid hor imaamka odhan mayno laakiin haweenweynaha ciidagala uu ku qasbay inuu hor yimaado uu yiraahdo waan khaldamay aniga khaldamay xilqi iyo xumaan aniga igu jirtay baa igu kaliftay halayga raali noqdo degdeg baan u sugaynaa dawladana waxaan ka codsanaynaa oon leenahay kaasoo kale wuxuu dadka wuxuu sameeyo mooyaane iyo kala fogeeyo dadka sii kala fogeeyo mooyaane Somaliland oo wada joogaysa ma jirto maalin walba wax kale oo dad cabanayo kala wada arki doona laakiin gaar ahaan
imaka cabashadani maaha cid gaara oo dee taabanaysa dad gaara laakiin waa hooyooyin waa sodoho waa hablahoodoo kale waxaan uu ku qoray afar buuggiisa oo uu ku macneeyey cay aan gabasho lahayn degdeg baan u sugaynaa haddaanu nahay haweenweynaha ciidagale jawaabta degdegaan sugaynaana waa wasiirkoo xilka laga qaado buwaabtuu gacantiisa ku gubo dadkii uu ku gafo hor yimaadu idhaahdo waa gafe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi in la yidhaahdo guri balaayo oo inaga dee buugi lagu qoray horta taariikh qablaha ciidagale hore ayna u lahayn maanta loo samayn maayo isaga marka hore qodob baan leeyahay waxaan leeyahay haddii aanad ka jawaabin ama aanad dib uga hadlin oo aanad raaligelin ama xaal ka bixin qofku way meel u qaldami karaa horta lagu barto israaha buuggan hablaha ciidagale markuu ku qorayay sababta ay tahay buuggiisa hadduu socon waayo cayda hablaha ciidagale inuu kuma iibsanahay midkas waxaan farayaa madaxweynaha somalilan waxaan u sheegayaa ninkan waxaad ka dhigatay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka qofka dhaqanka loo dirtaa waa inuu noqdaa qof isagu ku dhaqmaa oo ah umaadkiita raacin wuxuu ka soo jeedo iyo siduu yahay iyo buugga uu hablaha ku caayay intaba umaad miiriyo mudana madaxweyne waxaan kuu sheegayaa hablaha daawud ismaaciil ee caayay waa hablaha hooyada cadar ay ka soo jeedo waxaan kuu sheegayaa ma malayna inay arrinkan cunsuriyadu ku jirtaan malaynay sababtoo ah buugga taariikhda waxaa la qoray waqti horena inankii soo saaray buuggan weli cid ka hadasho inankaa beeshoodii ma jirto weli madaxweyne ka hadlay ama yidhi kabdoob ama xaal ka bixina maynaan arag soo gabagabaynayaan leeyahay guri balaayo way inoo bilaabantay gurigaa dabadii waan la fadhiyi doonaa ama waan isdhiibi oo buugaagtaad gubi oo xaal baad bixi oo xilkaad ka digi ama suba wallaahi inagoo dhangad sidan ama beentayba hooraaye la yidhaahdo iyo cumar ciidina jibaax ayaa BBC-da berigii la yidhi keebaa cayda badiya dabadeeta markuu dhameeyey mid waliba caydiisii waday ayuu hooraaye yidhi waxba yahay dee horta ninkan waa waxba yahay oo wax u hadhay ma jiraan waxaan se idiin sheegayaa anuu gabayada ma aqaano laakiin ilaa 3 habeen 4 habeen waan yar xanuunsado madaxay xanuunay waxbaan yar yidhi bal iga yar eego waxaan idhi doqonow madhaacow kay maradu diidow maamuus la'aanow kii magaca waayow mukulaalagonow waxa duusho waxa dalalka aado tacsaya araado dee waxba yay baatee maxaan kaala hadlaa wasiir baa la yidhi noqo lama odhan xaawalayda falanqee wax ka sheeg habluhu meel wal ooy joogaanba sharaf bay mudan yihiin kuwaasaa mudan kuwanaa mudan magaca soomaaliyeed amba islaamka hablaha islaameed mid waliba karaamo iyo sharaf bay mudan tahay ceemale habluhu ceemalaha waxaa loo diray dee waxa la yidhi wasiir noqo kursigan ku fadhiiso lama odhan xaawalayda ka shaqeeye codsanaynaa madaxweynaha somalilan ninkaa haddaan naloo keenin annaga ragga yagu uma qalmaan anigaa dumarkaygana u liito dhankad baan kaga soo saarayaan ku fadhiyo hablaha ciidagale waa hooda gebigood hadiyad eebba weeyaan iyo lama helaanka waa hormuudkii dalkiiyo hurinta reer sheekh halgankii meel bay ku leeyihiin lama hilmaamaan horumarka dalkay jecel yihiin haatan dabadeed halyeeyaday dhaleen baa caddayn horumarkoodii hoyga ay dhistaan baa lagu hagaagaa ee halkan aad kala qaaday baanan haatan garanay waa nin hablaha ciidagale halkan cadho iyo gadood bay u yimaadeen waxaana qabanin baana lagu sameeyey waxaan leeyahay goblan tala adduunyo waa guri barwaaqa waa guri abaareede ilaahay calaamaha ku rida ninka ceebteena bugaagta ku qoray ee inoogu tala galay inay carruurta yaryar ceebteena inaga ku hadaaqdo inacaayo uu qoray nin la yidhaahdo axmed cawaale oo ah brofesor ninkaasi wuxuu qoray buugga wakhtigan isla wakhti u dhow uu guri sareeya qoray buugga marka buugga uu qoray ninkaasi waxa uu ku sheegay qolo la yidhaahdo jibriil abokorka ayuu ku sheegay iyo qolo kale ayuu isxaaqan u malaynayaa inay ahayd ayaa wuxuu ku sheegay in uu yahay nin muxuu ahaa inuu buugga inay yihiin inay oromo ka soo jeedaan buuggaas markii la qoray amba sheekhaal ay la galaan buuggaa markii la arkay waxa ninkaasi magaalada waxa laalay wixii jibriil abukar deganaa weerar bay ku qaadeen buuggii ninkii wuxuu ku xidhnaa CID-da 3 cisho
saddex cisho ayuu ku xidhnaa CID-da markii lagu xidhayna waxa lagu xukumay inuu wax alaaliyo waxa buug baxay intuu soo ururiyo uu dab qabadsiiyo waxa aflagaadada kaliyaata lagu haystayna waa reer uu yiri waxay ka soo jeedaan muxuu ahaayay sheekhaal haddaba maanta ninka guri sareeye wuxuu sheegay dumarka ciidagale ayaa uu ka hadlay waxaynu ognahay dumarka ciidagale ee uu ka hadlay inay madaxweynaha hooyadii suuban ku jirto laakiin wuxuu ku helay darajo ayuu ku helay iyo xil ayuu ku helay sidaan filayo waayo madaxweynuhu dama buugga la 2012 la qoray ee intaasoo dhan joogay waxaan u malaynayaa inuu og yahay marka waxa weeyaan ninkaasi orta uma qalmo inuu wasaaradda warfaafinta wacyigelinta uu haysto umana qalmo inuu dalka soo hol fadhiisto oo uu noqdo qof xil guri sareeye aniga cashuurtayda ayuu ku fadhiyaa meesha waayo dumarka Somaliland gabigoodu way ka siman yihiin maanta aniga hadduu caayo bari toolana tuudhalu caayaya 10 hablood buu leeyahay waxa weeyaan markaa haddii uu madaxweynuhu uu waxba ka qaban waayo waxaan u sheegayaa guri sareeye in ay imika bilaabmatay ciyaartii isaga bilaabay annaguna waanu dhammaynaynaa waxa kale oo u sheegayaa Somaliland in ay dumarku nabadgelyadana dhaliyaan dagaalkana dhaliyaan waxa jirta waxaan la yaabi jiray taariikhii hore ee gabayada la isu tirin jiray baa waxaan moodi jiray guri barwaaqo iyo aabihii in laga gardarnaa laakiin maantaan ogaaday gabayadii taariikhii hore in ay ku bannaan yihiin gabay baa waxa jira oo la yidhi gabay baa wuxuu ahaa nin magaalaha heetiyo mara ku hayruufa oo macawusu shaal u dhigay macawusu hoos u dhigay shaal ku hamagsiya hargeysana markuu qaadka cuno faraska heeseeya haddana aan la hadhin maalintii heega laga qaaday habka shiishka loo ridiyo nimaan banan harnaankiisa marka waxaan leeyahay waxa inay taariikhdaasi maanta isaga iyo aabihii ku salaysnayd maantuun baan ogaaday